السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيدنا هالبسوا ميمونة عبد السلام شيخ برخت waxaan muxuu ahaayay fi recording hore idin soo sameeyay oo ahaa dhowr bilood ka hor aan kaga hadlayay COVID-19 iyo sida maaragtay ay basasho caawiso COVID-19 Maymuna Cabdi Salaan Sheekh Barkad ayaa waxaan ku noolay Atlanta, Georgia, gobolka muxuu ahaayay Georgia, America, Mareykanka muxuu ahaayay halkan in badan baan joogay hadday 20 sano dhaafta lama sheegay waxaan rabaa inaan idin sheego background-kayga ama muxuu ahaayay education-kayga aan halka ku qaatay intaan Mareykanka joogay muxuu ahaayay 2 degree baan ugu sameeyay 2 degree hore wuxuu ahaa respiratory therapist oo muxuu ahaayay aad u qaabilsan tahay sababada ilaa iyo neefsiga oo aan nidhaahno upper airway iyo lower airway marka waxa weyn taas waad ku shaqaynaysaa waxaad ku shaqo leedahay mechanical ventilation-kii waxaad ku shaqo leedahay waxaas wax alla wixii breathing ku saabsan iyo respiratory diseases oo dhan iyo ku shaqo leedahay degree-gaygii labaad waan qaatay muxuu ahaayay after markaan 13 sano oo malaynaynahay aan ku shaqeeyay respiratory therapist waxaan qaatay muxuu ahaayay nursing register nurse kana ICU ka shaqeeyay hadda waxa weeyaan COVID ICU weeyaan intaan COVID ku bilaabmay regular ICU ka shaqeynay marka haddana inta kaga baxo kaga gudbo introduction-kaygii COVID kan waxa weeyaan COVID-19 waxa weeyaan coronavirus waa virus xun waa virus dilaa waa tilaa sanadka hore in haysay sanadka hore dadka wax loo sheegay ma jirin runtii waayo vaccine ma jirin wax kale oo laga yaqaan ma jirin dadku way dhimanayeen laakiin maanta vaccine-ta la helay ama talaalka la helay Soomaaliya waxa la dhinayaa meel kasta oo joogta walaalaha Soomaaliyeed meel kasta oo joogta af Soomaaliya ku hadashaan hadday talaalkaas aad u leediin access oo aad heli karaysaan talaalkayna qaadataan number 1 number 2 sidaad isku ilaalin lahaydeen dadka family-gaaga ilaalin adiguna isku ilaalin inaad falowgeed qabato weeyaan also labadaaba waan idinku dardaaraya marka intaa kaga baxo intaas COVID-19 waxaan kaloo ogaaday saan recording-keeda ku sameynay ahaa inankii muxuu ahaayay engineer Haybe ee waqooyiga Soomaaliya ku nool magaalada Sheekh iyo anigu aan idinku sameynay waxaan ogaanay inay respiratory diseases badan oo kale ay daweyso muxuu ahaayay ama wax ka tarto toon basasho marka waxaan ogaanay inay muxuu ahaayay xiiqda wax ka tarto xiiqda aniga ma tijaabiyay inankayga markuu yaraan la oran jiray childhood childhood asthma ama xiiq lagu sheegi jiray laakiin wax badan ma ahayn uu ka koray markuu stress ka qabtay wuxuu medical school ku jiraa wuxuu practice-kiisa ku jiraa markay taxanada waaweyn u qaadanayo muxuu yara qufacay ku qaadataa markuu maaragtay marka waxa weeyna waxaan saluumiyaa basasha u jarjartidood siisid basashii baan u jarjaray iyo toontan waan ugu yara dhex daray halka bacad saasaan ugu riday uu dhag siiyay saas ugu neefsaday 3 jeer dhag uu ka joogsadayba dhag sidii ugu furfan ku inhaler-kii ka isticmaalkaas ka isticmaalay imaka isaga iga badiyo markuu soo qabtaa halkii uu soo qaataa waana dhakhtar marka waxa kale caawisay oo pneumonia bronchitis kuwaas oo dhan iyo caawisay marka waxa weeyaan xagga waxa walaalkan engineer Haybe inoo warrami doona dad xagga jooga Soomaaliya oo saako ugu bogsaday aniga laftigayga dad badan baa iga soo wacay muxuu ahaayay Ingiriiska iyo meelo kala duwan oo yiri maxaa bronchitis waxa weeyaan bronchiaha bronchiaha yaryar ee ku yaala oo inflammation ku dhaco ama barara taas marka waxay keenaysaa in muxuu ahaayay airway-ga xidhmo oo qofkii balqan badan ku sameysmo kaas marka infection-kiisii sameeyay marka bacteria noqon kara virus noqon kara marka bacteria-dii inta badan qaadanaysa 3 bilood antibiotic bronchitis-ku ciyaar maaha tii waxaba ka fiicanba wakaas xabada basashaas baad u jarjaraysaa bahashaas baad ku xidhaysaa caabuqa halku xidhayo halka laba maxalad qofta marantay kashiga dhexdiisa gelinaysa barta baad saas kugu xidhaysaa markaas intaas kugu xidho dhag halkaas baad maaragtay qofacaysa marka si fiican qofacdo wixii ka soo go'o way kala rabgaroobaysaa marka muxuu ahaayay waxa kale oo xiiqda waan idin sheegay bronchitis waan idin sheegay pneumonia Soomaaliya waxa lagu yiraahdaa khaldanayn ama off baa la yiraahdaa ama jeen wareen labada mid baa la yiraahdaa soo Soomaaliga marka labadaasiba waa lagu eegay dadkiina degdeg bay ugu bogsadeen marka walaalahay waxaan idin leeyahay durbool iloobay COVID-ku soo noqday COVID-kan ku meel tagaya maaha annaga imika isbitaalkan jooga maanta ka soo rawaxay 117 qof oo COVID-19 confirmed ah iyo ku jiray ma garatay marka waxaan idin leeyahay aad iyo aad careful imika waxaan idin sameeyay preparationkii
preparationka uu isku diyaaray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aniga soo noqday marka imka waxaan idin tusayaa saad u diyaarinaysaan basashaas. waxa warningiga ah ama aan idin sheegaya digniiniga ah inaad bahasha shafka ku xidhaan inaydaan cunin haddaad cuntaan mukoosaha caloosha iyo waxyeelaysa dadkeenu inta badan waa kuwan gaasta ka cawda waa kuwa waxaas oo dhan ka cawda marka waxa weeyaan bahashaasi walaalayaal oo qayrin iyadoo ah walaa toonta walaa basasheedu ah cunina calooshana ku xidhaan dad waxa jira caloosha markii hore inta iskaga xidheen GI bleed ama bleeding wax la yiraahdo ku dhacay marka intaas waa introduction kaas okay marka waxaan haysanaa halkan waxaad soo qaadanaysaa basashi number 1 wata basasha cas more effective yani anigu aaminsanahay laakiin waxaan filayaa basasha tii aad heshaabo waad helayso waad isticmaali karaysaa toontii waatan waxoogaa waan soo yaro googoostay halkaan dhigtay iyada inta badan inhalation ayaanu isticmaalaynaa basasha iyo toontan waan ku dhex daraynaa labadaba inhalation waan isticmaali karaynaa laakiin marka caabuqu dhaadhaco ee sanbabada uu tago waxa weeyaan basashaasi unba halkaas ka gudbayso oo lower airway-ga kelin garaynaysa okay maxaan samaynaynaa marka basasheeni waan jarjaranaynaa marka okay here we go bismillaahi raxmaani raxiim basashu indhaha haday kaa gashay haday meel kasta kaa gasho dadka okay dadka qaar baa ku laqanyooda dadka qaar baa ku dhibaa yiraahdo waan ku la laboonaya la labada waxa kaaga daran dhimashada iyo silciga saxariirta aanad markay beeshanadu noo yimaadaan waxaad moodaa inay underwater biyaha hoostooda ku neefsanayaan oo waxaan qalab haysanaa lagama sheekayn karo oxygen oo abundant ah afar level oo muxuu ahaayay respiratory modality ayaa lagu kala bedbedelaa qofka haddana weli uma hayno maaragtay qofka wax indha ka siiya sida basashaas dhab uga siinayso anigu saan horeba idinku sheegay medical fieldkan ku jiray weligay waan kasoo horjeeday waxaa home remedy-ga waxaa delay care waxa la yidhahdo sameeye laakiin saan bahashaa u arkay waxa ii caddaatay inay bahashaas muhiim tahay very important tahay okay waan jarjaranay bahalka wakaas wash clothes kaas soo qaadaysa ama mara kale oo nadiif wash clothes nadiif soo qaadanaysa waad ku ridanaysaa haddaad doonto kala qaybsanaysaa ma garat waad kala qaybsanaysaa tanna waan ku daraynaa iyadan dhinac baan kaga daraynaa ma garat waa kaas arrintaas marka halkaasaa kuugu marayso maxaad samaynaysaa waa adigaa qaaday dhagax ama qori ama tib ama wax alla wixii aad haysato yaad laga ku markaad ku garaacday soo bushbushta ma arkaysaan wataa durba way qoyday muudkii baa kasoo baxaya indhihii xitaa way iga gelaysaa then marka alla markaad saa tidhaahdo waa adigaa soo qaaday rubber banki ama injirkaasaad dhag ku siinaysaa saanu uga bixin bahasho ma garatay waa kaas dhush sawlaasoo ma arkaysid okay marka horeysa inta marba taa markaas halkaas tanwaatiyan caabuqa ku xidhayna xagga hoose mar alla markaad qufaca iyo adduunkaa dareento uu dhaadhacay bahalkii oo xaggii intii kulinaysay arrimihii kan hayda wax la isku bukurinay arrintu way ka weyn tahay hoos buu dhaadhacay ama ha ahaade hargabkii oo kugu xumaado pneumonia noqday ama bronchitis ha noqdo ama covid-19 ha noqdo oo muxuu ahay balkaas waka halkaas baad saa u dhigaysaa waka labada naas waa kuwa labada naas dhexdoodii oo sanbabadii bartaasay fadhiyaan ku beegan baad saa ku halkaa ugu xidhaysaa haddaad rabto tape baad ku xidhaysaa waxay taamajin tape baad ku siinaysaa ama maraad soo qaadaysaa isku xidhaysaa iskugu soo wareejinaysaa waad ku seexanaysaa waad ku soo toosaysaa 4 saacadoodba marbaad tu cusub oo farasha soo samaysanaysaa dhag baad halkaa ku siinaysaa taas waa taas marka inankan waxa weeyaan CPR kan ku sameeya dadka marka waa kaas halkaas marka waxaan ku sii yara daba daraya halkaas haddaan ka sii socdo xiiqdii ama asmadii dad badan oo Soomaaliyeed waxa asmadaas soo dhibaataysan xashka markaan tagay dad badan baan muxuu ahaay kula kulmoon 40 saacadood ka bamid wax maaragtay aan la habeynayay dawooyinkooda okay marka halkan waxaan ku haysanaa toontii intii iyo basashiyo intii isku tuman marka waxa weeyaan waxaan sii gargaraacno waxaan sameynaynaa waatan halkan baan ku guranaynaa markaas kulaylka ka soo baxay wada yaabaysaa imka arrimahaas waa kaas mar alla markaad halkaas saa ugu gurato saasaad ugu guranaysaa waa kaas siblagaasay leedahay marka marka dalkaa ku xidho wixii oo dhan baa kuugu hadhaya meesha intaad saa u furto ood labada koona saa u qabato ayaad markaa waad afuufaysaa marka hore saasaas kaga saaraysaa
هل مرة صار marka saa u qaadato neeftii hold it couple seconds one niyada ka tanaysa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 waad soo tufaysaa exactly saadin heel wax u sameysay weeyaan waad furaysaa afkaad la saa ugu xiraysaa waad neefsanaysaa marka xitaa caabuqii caburkii kale allergigii wixii oo dhan xitaa dhagaha furmaayo oo saa fac